waxaynu maanta bilaabi doonaa cashirkeennii afraad ee ku saabsanaa Horaska Visual Studio inagoo maanta dhigan doona operatorskii iyo sugeyntii waxaan dhigan doonaa sugeyn iyo suqaybin iyo isku dhufasho iyo kajari oo ah waxaan samayn doonaa bal program wax suukan geynaya wax suukan qaybinaya wax suukan dhufanaya iyo mid wax suukan jiray marka hore waxaan soo kicinaynaa course-keena Microsoft Visual Studio.net kadib waxaan dooranaa new project waan yar sugnaa wait waa kan name-kii baan ka bedelinaa waxaan odhanaynaa waxaad ka dhigtaa listen for VB.net 2010 Somali okay markaan inta new project doorano bal waxaan sameynaynaa form yar oo ay ku jiraan operatorskii okay formka aanu design gareysano waa kan formka magaca aynu ka yar bedelno saynu ogaanay markaan tagino property-ga halka ay ka qoran tahay form waxaan ugu bixinaa simple calculator okay waxaan u bixinaa simple calculator bal aynu yar design gareysano marka hore iyo waxyaabaha looga baahan yahay waxa looga baahan yahay laba text box text box 1 oo ah meeshii ay xisaabaadka gelinaynay iyo text box 2 okay labadii text box oo soo gelinay waxa looga baahan yahay laba level oo magaca ay noo qabta ama value-ga waa kan level 1 magaca ka bedel waxa tiraahdaa value 1 okay level 2 waa kan isna waxa tiraahdaa magaca ka bedel value isna waxa tiraahdaa value 2 isna waxa tiraahdaa value 2 okay waxaan sameynay value 1 iyo value 2 then waxaanu ka xijin doonaa meeshii result-iga inoo soo saaraysay oo ah inaynu hal level keeno iyadana oo halkeenu click siino oo aynu iyadana ku qorno result okay result okay waa meeshii inoo soo saaraysay result-iga sugeynta then waxaan qoranaa hadaba afartii button ee suukan geynayay button 1 okay soo yar qaad halka dhig button 2 soo yar qabo button 2 soo yar qabo isna halkan dhig okay button 3 soo yar qabo isna halkan dhig okay button 4 soo yar qabo isna halka dhig okay afartii button ayaynu haysanaa then afartan button magaca inooga bedel waxaad tiraahdaa addition inooga dhig oo ah add kii isku dirayay labo waxaad tiraahdaa waxaad ka dhigtaa subtraction oo ah kii inoo kala jirayay subtract ka dhig waxaad ku xijisaa multiple oo ah kii isku dhufanayay multiply okay waxaad ku xijisaa divide oo ah kii inoo qaybinayay okay sidaa markii yahay waxaynu ku dhufanaynaa bal mid inaga masaxa meesha oo ahaa reset-kii inaynu samaysano isagana waa kan reset-kii baynu samaysanaynaa isna waxaynu bixinaynaa reset okay reset baynu bixinay isagana okay afartii button waan haysanaa meeshii answer-kii noo saaraysay waan haysanaa result-kii waan haysanaa waa kan waxaan odhanaa bal intaba fartooda inoo yar weynaa hal mar keliya Cambodia ka dhig farta marka hore tape-keeda bold ka dhig 12 ka dhig okay fartiina wayna weysanay gebigiisina wayna bedelnay okay bal aynu eegno marka hore inuu wax isu geynayo aanu tijaabino waa kan formkeena way noo soo kacay bal waxaad tiraahdaa labo loo geeyay labo markaad gelisay text box-ka bal add ma shaqeynayo kala jaris ma shaqeynayso isku dhufasho ma shaqeynayso isu qaybin ma shaqeynayso okay reset-kii ma shaqeynayo
okay bal marka hore aan ka shaqeysiino buttonka horta resetka inuu wax naga masixi karo buttonka resetka waxaan ugu masaxnaa double click si waxaad ku qoraysaa code la dhaho textbox1 dot text textbox1 dot text haye is equal laba dhibcood okay waxaad tiraahdaa textbox2 na waxaad tiraahdaa meel banaan iga dhig markaan click gareeyo is equal laba dhibcood okay halka waxaan kaga shaqeysiinay buttonkii la oran jiray reset oo haddaynu eegno imika buttonka reset waa kan uu shaqeynayaa haddaynu ku qorno 10 okay plus 10 okay reset uu shaqeeyay formka in colorkeeda bedelno halkii red baan tegnaa background color fonti okay waa kan formkiina colorka waan ka bedelnay bal aynu ka shaqeysiino buttonka la dhaho isu geyn add double click si kadib waxaad qoraysaa marka hore horta marka hore waa inaan sameynaa global variable oo la dhaho global declaration okay waxaynu qoraynaa dim a b c okay dim a b c markaan qorno waxaan odhanaynaa as waxay kula mid tahay integer okay dim a b c as integer oo ah global variable ama global declaration oo waayo kaasi waa global halka waxaynu gelin laakiin waxa la dhahaa waa local variable okay bal imika aynu isticmaalno waxaynu odhanaynaa marka hore a aynu xagga sare kusoo sheegnay waxay kula mid tahay textbox1 dot text okay b na waxay kula mid tahay textbox2 oo ah meeshii ku qormisay dot text okay haddaba c baa soo hadhay c waxay kula mid tahay c is equal a oo loo geeyey b ayay kula mid tahay level 3 haddaba oo ah meeshii asarka inoo soo saarayey oo aynu dooranay ku qornay resultigii level 3 waxaynu odhanaynaa dot text isna wuxuu kula mid yahay c oo ah meeshii ansarka inoo soo saaraysay okay balaynu eegno inay shaqeyso isu geyntu oo hadda waxaan ka shaqeysiinay buttonka la dhaho isu geyn okay 20 textiga labaad waxaan gelinaynaa isagana 5 okay buttonka add haddaynu idhaahno waa inay halka ay ku qoran tahay result inoo soo baxdaa 25 okay buttonka add waxaa inoo soo baxay 25 okay reset buttonkaas waynu ka shaqeysiinay halkan waxaynu ku daranaa inuu isna inaga masaxo xitaa text levelka okay waxaan odhanaa level 3 dot text isna marka la masaxo waxaad tiraahdaa is equal laba dhibcood okay way inoo shaqeeyey waxaynu ku xijin doonaa bal buttonka kala jarista inuu inoo shaqeeyo koodhkeena hore uu inoo soo koobiye control c okay v halkaas ay ku qoran tahay calaamadda waxaad tiraahdaa kala jaris ka dhig okay bal isna aynu eegno inuu inoo shaqeeyo waa kan waxaan odhanaynaa 20 okay laga jaray 5 waa inay 15 inoo soo baxdaa okay 15 thanks way inoo shaqeeyey aynu eegno koodhkeena isku dhufashada okay koodhkeena isku dhufashada isna aynu eegno buttonka isku dhufashada double click si then waxaad tiraahdaa isna a waxay kula mid tahay textbox1 dot text okay b waxay kula mid tahay textbox2 dot text okay c waxay kula mid tahay a times b okay level 3 wuxuu kula mid yahay dot text is equal c ayuu kula mid yahay okay aynu eegno iyaduna inay shaqeyso 5 lagu dhuftay 5 aynu eegno hadda 25 answerka way noo soo saaray 25 okay reset waxaa inoo hadhay keliya isu qaybintii okay isu qaybinta buttonka double click c then inoo soo koobiye koodhkan control c okay control v kadibna calaamadda isku dhufashada waxaad ka dhigtaa isu qaybin okay imika waxaan rajeynayaa inay noo shaqeyn doonaan marka la isu geeyo iyo
marka la isku dhufto iyo marka la kala jaro iyo marka la isku qaybiyo okay balaynu eegna hadda 10 oo value 1 iyo 10 oo value 2 marka la isku dhufto marka la isku daro waa 20 marka la kala jaro waa 0 marka la isku dhufto waa 100 marka la isku qaybiyo waa 1 okay aad ayuu noo soo saaray waan yar design gareyn karnaa oo designkiisa waxaan oran karnaa waxaad ku soo kordhisaa level yar waa kan shape level saayir ku soo kordhi then waxaad tigaysaa halkan ay ku qoran tahay fill ama marka hore waxaad tiraa transparency ka qaad waxaad tiraa horizontal ka dhig then waa kan waa design ka hadana waxaad ka dhigi kartaa border dash baad ka oran kartaa ka dhig border radius kiisa waxaad oran kartaa 10 pixel ka dhig si uu circle noqdo okay wuu weynaaday laakiin dash buu ahaa solid waa kan kan waxaad oran kartaa isaga laftirkiisa 10 ka dhig okay kan waxaad oran kartaa si markii hore halkiisii naga gaay okay iminka halka waxa inagu soo dhamaaday symbol calculator ama symbol operators ki waa kan isu geeymaadkii afartii xabo iyo residkii casharka halkaas inagu sheegi doona inagoo diyaarin doona casharada hore iyo waliba sidii loo sameyn lahaa save update delete iyo edit insha Allah casharka dambe waxaan isku dayeynaa inaynu sameyno simple program oo ah school management system waxaan leeyahay channelka lagu xidhnaado si loogu faa'iideysto casharada programming language-ka aad ayaan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ayaan idinkaga tegayaa waa mahadsantihiin dhammaantiin